saakay oo halkan yimid boqolaal dadweynaha uu ku jiro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dadka halkan ku soo tugtay waxa kamid ah xubno kamid ah golaha wasiirada gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada saraakiisha ciidamada iyo dadweyne kale dabcan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa halkan khudbad ka jeediyay waxa uu ka hadlay sida dadka Soomaaliyeed ay muhiim u tahay in isu saamaxaan ay iscafiyaan isla markaana ay si wada jir ah wax u qabsadaan sidoo kale halkan waxa warbaahintu kula hadlay mas'uuliyiin kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya dadka halkan warbaahintu kula hadlay waxa kamid ah gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo mas'uuliyiin kale oo dhamaantood dadka Soomaaliyeed meel walba joogan ugu hambaliyay maalinta koowaad ee Ciidul Adha يعني مسلمين ترمبل كسر جوال إسعافنا أيان وحن لا يهاي كويس عفية الله نجود ديجو أن أول سو جسنا ومدنا ودن كينان سيدي عن وحقوق من له وحنا نقول سلنا إن شاء الله قارن حرب باقينا وجديو لما نقول هنين الصوماليات دون كده على ذا كوكلا نول قارهان نخاطر الصوماليات إن ودن كده وصل نقدان سي أمدو ذا أباهن وحقوق قبطان waxaan ugu taraan maxay yeelay qofka dhakhtarka waxa loo baahan yahay xilliga yani dhibaatada masiibooyinka jiraan saas awgeed waxaan rabaa inaan baaqaas u diro dhammaan aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed gaar ahaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee dunida dhan wada joogto waxaan leeyahay ummadiina waa idin baahan tahay wadankiina waa nabad wadankiina waa idin baahan yahay ummadiina waa idin baahan tahay waxaan leeyahay waana ajra ka helaysiin ummadiina waxa u qabataan maxay yeelay ilaahay quraankiisa wato nagu sheego man ahyaaha فكان ما حيا الناس جميعا مركز الأمان دكاترته وحن كعسنينا إنه مدوا وصل نقدان وحنو قبطان حلقة وليه دباتون كدبا بروبلمز كبدن إجران أنت مركز وحن لا هي عيد مبارك waxaan ku suganahay masjidka Sabahasiga dadka maanta masaajid ku soo dugtay waxa kamid ah gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee dawladda federaalka Soomaaliya mudan gudoomiye marka hore ciid wanaagsan magaalada Muqdisho ku ciidaysa maanta ciid mubaarak insha Allah kul caam antum bikhair waxa sharaf weyn ah runtii in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud aan kula soo tukado masaajidka Isbaahaysiga Islaamka iyo golihii wasiirada iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaare yani labada gol ee dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed runtii gobolka Banaadir runtii maamulka waxaan leeyahay kul caam antum bikhair sax wa salaam wal aafiya yaadallahu alayna wa alaykum bil yumna wal baraka TV-ga Royal shaqaalaha iyo wariyaasha runtii aad baan idinkaga hambalyeynaa waxaan leeyahay shacabka caalamka oo dhan caalamka islaamiga oo dhan waxa la ciid mubaarak gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan gaar ahaan shacabka ku dhan gobolka Shabeellaha Hoose runtii maxaan ku radaa waa masaajidka Isbaahaysiga Islaamka sharaf weyn ay tahay masaajidkan oo masaajidada maxaan ku radaa caalamka islaamiga oo dhan maxaan ku ugu caansan ardaydii lagu aasaasin aan kamid ahay runtii sharaf ay tahay 80-maadkii waxaan leeyahay xilligii shahaada Sheekh Cabdullaahi Ilaahu naxariisto oo tafsiirka ka akhrin jiray runtii aad iyo aad yani masaajidkan masaajid qiimo leh oo qaayile weeye waxaan leenahay marka insha Allah taala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo dawladda oo dhan baday ku soo tukanayso waxaan leeyahay marka Soomaaliya insha Allah wa ahluna ahlul mutadayyin بلدنا بلد متدين شعبنا شعب متدينين إن شاء الله ويعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركة كل عام وأنتم بخير. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose waxna ugu rantaa dadka kala duwan ee deegaanada gobolka deegaanada Shabeellaha Hoose kala nool sida loogu ciiday iyo aad ahaanta inta ka warqabtay runtii maxaan ku raada gobolka Shabeellaha Hoose waxaan ka yimid xalay sababtoo maxaan ku raada waxaan rabay inaan kula ciido maxaan ku raada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliyeed masaajidka Isbaahaysiga waagi horna ahaan jirtay goboltoorayaasha wasiirada agaasimayaasha safiirada caalamka Soomaaliya oo dhan maxaan ku markii ciidaha la gaaro dhanba waxay kula ciidi jireen madaxda qaranka maxaan ku raada masaajidkan lama ogolaan macnaha in qofka maxaa ku raada shaqada loo dirin in madaxweynaha meesha ku ciiday ma in qofka duu sarkaal sare haduu yahay inuu la ciido madaxweynaha taas sharci ah macnaha dawladnimo ah si caalamka iyo shacabka Soomaaliya laftigeeda ay u noqoto macnaha niyadis in hadaladeena ama siyaasaddan inay maxaan ku raada midaysan tahay taas ayaa laga garanayaa wadan walba waa screenka ama maxaan ku raada shaashada waxa laga fiirsanaa maxaan ku raada madaxweynaha jamhuuriyadda
iyo maxaan ku saraakiishiisa iyo hogaamiyaasha maxaan ku rahaa asaga ka hooseeya inay isku xiran yihiin marka taas cadaynaysa insha Allah nimanka khawaarijta argagixisadana niijabay ku tahay macnaha iyo nimanka maxaan ku rahaa cadowga Soomaaliyeed oo niijabay ku tahay marka saaligeeda marka shacabka Soomaaliyeed degmooyinka dhan waa laga wada ciiday sida Baraawe sida Qoryooley sida maxaan ku rahaa Buulmareer sida Marka Shalambood sida maxaan ku rahaa Afgooye Walaweyn ilaa ay tuulooyinka ciyaarihii dhaqanka ayaa hadda socda waxaan filayaa maanta in maxaan ku rahaa kooxo hidii dhaqan ah ama gobolka Shabeellaha ka soo jeeda inay daljiirka dahsoon ay ku soo bandhigi doonaan galabta insha Allah taala waa maasantiin idinka mudan hay kullukum caam wa antum bikhair dhamaant ummadda muslimiinta ah meel walba ay joogaan sanadkan sanadka xiga Ilaahay nagu gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo iyo bashbash waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan dadka reer Mudug oo baan salaamayaa si fiican baan u salaamayaa asxaabteeda dhammaan meel walba ay joogaan iyo ardayda aan isla dhigano jaamacadda Muqdisho Soomaaliya aad baan idin salaamayaa waan xasantihiin kullukum caam wa antum bikhair ciid wanaagsan salaamaya alxamdulillah bismillahir rahmaanir rahiim halkan waxaan salaamayaa ummadda islaamka oo dhan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan talo xasan salaamayaa hooyaday macaan hooyo Jawaar Cali waxaan salaamayaa ayeeday Xaliimo Cali waxaan salaamayaa walaalaha intii maqalti keenaysa waxaan salaamayaa walaashay hodan Iyaas Bashiir iyo waxaan salaamayaa hawriyartay Habadriyo iyo waxaan salaamayaa Xutun Cabdullaah Muuse waxaan loo salaamayaa in hawriyartay Luul oo igu qaaliya waxaan halkan oo dalka salaamayaa inta iskoolka asla dheeno iskoolka Anadol iyo macallimiinteeda oo dhan waxaan iyo maamulka ustaahiraabe waana maasantii magacay waa Maxamed Siido aadan ummadda muslimiinta kulli waxaan leeyahay horta kullu caam wa antum bil khayr gaar hadda waxaan salaamayaa waalidiinteyda ayeeday hooyaday abarrey meel kasta oo joogan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr ummadda muslimiintana waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr ciid wanaagsan adina ku salaamayaa bismillaah magacaygu Axmed Maxamed Afrax waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogan qaasatan ummadda aan soo walaalahan nahay halkan iskuul wada ciidnay dhamaan aad baan u salaamayaa waxaan kala si fiican u salaamayaa ardayda aan isla dhignay jaamacadda Muqdisho qaasatan public health department of public health waxaan aad u salaamayaa asxaabtayda kala ah Maxamed Cumar Barrow Abubakar Cali Ahmed dhamaan aad baan u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaan ummadda islaamka meel walba ay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair min al-aa'idiin si qaas waxaan halkan u salaamayaa hooyaday Faadimo Ibraahim Birkaan iyo aabay Siciid Sheekh Cali iyo dhammaan waalidiinteeda meel walba ay joogaan iyo walaalahay si qaas waxaan halkan u salaamayaa walaashii ugu weyn Saacidi Siciid Sheekh Cali waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa nabad iyo barwaaqo iyo bashbash halkan ku gaar dhammaan islaamka waxaan u rajeynayaa sanadkan sanadkiisa inuu Ilaahay nagu wada gaarsiiyo nabad iyo baraaro iyo barwaaqo aweesadnoo ku salaamaya si qaas waxaan halkan u salaamayaa saaxiibteeda aan jeclahay Asma Cabdullaahi Xuseen Asma waxaan leeyahay إلهي سنة كان سنة سنوات يبشبشي برواقه إله نقول كرسي. يهود مع السلامة مراكن جرتا أبين مراكن جرو ولا له يا ذلك إيه أرض يوسف جماعة ويسوكر سي أنا غير إلا هذا وسلامة مع الكدوسي مع المحمد مع البشار وسلامة أرض دوسي اللي تدن زوير محمد يعقوب أصلا دمان تودا سلامة. ماذا حاجة؟ أما رحمة. أما الحلقة وتطبق إنك تكون على هو إذا كان waxay u tahay inaad dugsigeedii inaa Quraan akhrin kartid madrasii kartaa iyo dadka waxa uu ka qaadan kartaa ilaa uu Quraan يا صباح وغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لو الحمد في الآخرة والعسلين في المقام يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو رحيم الغفور وقال الذين كفروا لآتينا ساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يا badan oo adigoo kala ah oo caruur ah oo jeclaa in iidana jiraan waxa urjeenaysaa maanta maalin ma kan iiday ma doonto in iidan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عيد ونكسن لما مسلمين
Soomaaliyeed iyo muslimiinta caalamka waxaan u dirayaa tahniid ku aadan ciidda maasha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin TV-ga waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan halkan ka salaamayaa Royal TV qaasatan wariyaasha ku nool ku shaqeeyo daruufaha adag ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya maasha Allah salaan waxaan u dirayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka iyo dibadda salaan gaar ahaan waxaan u dirayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee ku nool gobolka magaalooyinka Marko iyo Shalambood waxaan leeyahay ummadaas waan mahadsantihiin waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida farxadda leh ee aad ugu dabaaldegteen magaalooyinkiina annagana waxaan idin soo direynaa farxad ku aadan ciidda munaasabadda ciidda ay joogaan ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr si gaar ah waxaan u salaamayaa wariyaasha Royal TV gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Muqdisho ciid wanaagsan iyo kuwa dibadda intaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ummadda muslimiinta meel kasta rooga meelaha ciid fayla gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ma inta ku salaamay marka koobad dadka gahoreyta aaday halima meereen iyo awkay saabrin dhamaan ciyaalka Ayuub Ruwayda Faama Iidla iyo aadiyo Saynabi soo sheehamadi dhamaan maarifaday gaar ahaan saaxiibaday Maxamuud Gawaan iyo Hasiire Ibrahim Tubay iyo Hasiire Ibrahim Mahmud dhamaan dintaas ku nagada meelaha dhamaan ummadda Soomaalida way baa kullu caam waan bixir ciid wanaagsan soo noqon marka arintan kale waxa ku libisantaa dharka hidaha iyo dhaqanka dad badan oo ku daawanay wax laga yaabaa caruur badan oo Soomaali ah oo dalka dibadiisa ku dhashay in dharkan aysan garanaynin xitaa magacyadooda qarkood aysan kala garanaynin adoo mid u tilmaamayo magacyadooda ma noo sheegi kartaa طبعا Soomaalida dhaqanka ku tabtay kulay dabcan mudaan bilaw kan barshe yalla reer barshe way la isticmaalay dadka waagi hore in barkimo walaa iyo koyna meel isticmaal jiray oo diifada jiray barshago galangil gaar ahaan barshe la meen gibsamay kono meel ray ul kuul kan galangil ee kan shanleediyo kan suunki oo meel ray daadan ka tan tuuridi hableeyda la raayo kan meel ray la raayo meel ray sheegada keeshki oo alaabta kredida dadka tuur walaayaba sakiintay wala dabiici oo daas la ka dhigmo haan koobaga magaarka hay ibad joog la ka dareer jiray dadku waayeeladan iyo dadkii una ku deerni dhaqan joohada jiray marka saas darteed ma idanay inaan dib u noolay dhaqankii Soomaalida maadaama ummatiba nagatay meel ray dad dhaqan ku guuray dhaqan kala guureen marka saasay dhaleed inaan geeka qaado bulshada bandhigay in meel ray iyadoo maalin ciido farxad badan ay niyo leeyin dhaqan qurux badan in labis lamid ah kan adduunyada ka qaado ay ku qurub han iyo leeyin ma sha Allah wal meel ku sheenam jiraan all wadanka la soo bi fashion iyo wala room jiraan way wala ku deereeyo qarash ahaan dharka kale ee suudadka iyo dharka caadiga ah ma qiirin suuqa badaysa wallahi qarash ahaan tusaalahan hadda madila ku qaado koobon ma gadeen $5 kan $2 ah gaday all haan $5 soonki wala intan kale meel raay ilaa $25 moodan ilaa ay wal deero meel raay $50 area wala mid waxa ku dhawaa dhaqanka lagu soo noolay waa wax qurux badan ee ku hambaleenayna bahda Royal TV Muqdisho gobolada dalka ilaa adduunyada dhan maadaama dhaqanka hidaha ee Soomaalida soo nooleynaysa dad badan ku daawanaya familka iyo ehelkaaga uu kamid yahay qaliilo yaa jeceshay inay salaantid way baamsan hor sheegay dhamaan may salaamay ummadda muslimiinta meel kasta roogan gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ehelladii macrifada ana la walantaa koob koromay way baantay bartay iyo maadkay gurada meela assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ciid mubaarak wa alaykum salaam warahmatullahi bismillah awalan assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waxaan rabaa maanta inaan halkan ka salaamo dhamaan ummadda islaamka aan ugu hambaliyo farxadda ciidul adha ma sha Allah waxaan kala rabaa inaan salaamo dhamaan asxaabteeda meel walba ay adduunka ka joogaan waxaan kala rabaa inaan si qaas u salaamo labadeeda waalid ee ugu horeeyaan hooyaday Numcaan Dul Cali Duugo sidoo kale aabahay Cali Umar Barro waxaan kala rabaa inaan salaamo adeeradeeda dhamaantood iyo diyaashay ee ugu horeyso Fuusiya Daahiye Foos Umar Barro Naseex Umar Barro Raxma Daahiye Hindi Daahiye sidoo kale waxaan rabaa inaan salaamo dhamaan inta taqaano waxaan kala salaamaa asxaabteeda goonida aan wax isla barano jaamacadda Muqdisho Faculty of Medicine aan isla barano waxaan kala rabaa insha Allah inaan salaamo inta taqaano meel walba ay joogaan adduunka waxaan leeyahay farxad ku ciida ciid kullu caam wa antum bil khayr ciid wanaagsan daawadayaal kullu caam wa antum bil khayr halkan waa gudaha masjidka isbahaysiga islaamka ee magaalada Muqdisho dadka masaajidka saakay salaada ciid ku soo tugto waxa kamid ah Ismaaciil Abuukar oo dabcan kamid ah mas'uuliyiinta telefishinka Royal oo waqtigan howlo shaqo u jooga magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya wuxuu jecel yahay in ummadda islaamka uu maanta la wadaago farxadda maanta ku ciida
مسؤول مكور سودو أويس ما تصنتها وحن horta halkan ka salaamaya dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan kaloo salaamayaa hooyaday Caasho Ducaale waxaan kaloo salaamayaa walaalahay dhammaan meel kasta ay wada joogaan waxaan salaamayaa xaaskayga caruurtayda ehelkooda dhan waan salaamayaa iyo dhammaan waxaan halkan hambalyo ciid uga dirayaa shaqaalaha Royal TV meel walba ay joogaan caalamka meel walba ay ka joogaan aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan maanta farxad weyn baa ii tahay waxaan salaada ciidda ku soo tugtay masaajidka isbahaysiga islaamka oo ah masaajidkii aan dugsiga quraanka ka dhigan jiray dhowr iyo 20 sanadood ka hor maalintaas waqtigaasana iigu dambeysay maanta iigu horeysa hadana oo salaada ciidda aan ku tugtay taariikh gooni baa ii leedahay maanta ciid wanaagsan baan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed kullu caam wa antum tayyib waata daawadayaal ciid wanaagsan waxa ku guda jirnaa qaybaha hambaliyada ee dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan Muqdisho u hambaliyeenay dadka Soomaaliyeed iyagoo marsiinaya telefishinka Royal ayla tagan Cabdulla Muuse Xasan oo kamid ah howlwadeenada telefishinka Royal xarunta Muqdisho dabcan Cabdulla waa farsamayaqaan iyo cameraman badan kala arka kamid maahan wuxuu jecel yahay maanta in ehelkiisa iyo asxaabtiisa uu la wadaago farxadda ciida marka hore ciid wanaagsan oo ku hambalyeynaa wanaagsan oo aan Awaas Maxamuud aadan ku salaama waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta meel walba joogaan waxaan leeyahay min shaahidiin min ciidin kunu caam wa antum bikhair waxaan leeyahay ciid wanaagsan marka labaad waxaan hambalyeynayaa aan la qaybsanayaa farxadda ehelkeyga oo ku sugan dalka iyo dibadiisaba waxaan leeyahay kunu caam wa antum bikhair Awaas iyo dhammaan telefishinka iyo mas'uuliyiinta TV oo kamid yahay Ismaaciil oo hadana ciid wanaagsan dabcan daawadayaal dadka hambalyeynaya aniga xataa hay waxaan jeclahay in halkan ugu hambaliyeeyo amba family-geyga igu horeyso hooyada Axmed dhammaanba ehelkeyga asxaabteyda qaraabada iyo dhammaan ardayda oo aan isla dhigno Joogka University gaar ahaan faculty-ga Law and Social Science waxaan leeyahay dhammaantiin ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair ciid wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم وعن داوديال مركله كل عام وانتم بالخير عيد وناكسن waxaa ku guda jirnaa maalinta koowaad ee ciida iyo soo bandhigida barnaamijkii ku saabsanaa sida maanta loogu ciido magaalada Muqdisho halkan sida aragtaan daawadayaal waa meel kale oo kamid ah goobaha dadku ay u soo damaasha tagaan waana meel dabcan sida aragtaan loogu talagalay in caruurtu si wanaagsan ugu ciidaan waa meelaha ku cusub magaalada Muqdisho muujinaya in maanta ay tahay maalin ciid ah waxa loogu talagalay in caruurta kala duwan halkan la isugu keeno waxa leedahay wiifo meel caruurta ay ku baashaalaan waqtiyada kala duwan ay ku qaataan
waxaa la hadli doonaa qaar ka mid ah waalidiinta halkan keenay carruurtooda waxay nooga warbixin doonaan sida maanta ugu faraxsan yihiin ciidda iyo dareenkooda maalinta koowaad ee ciidul adxa iskuulka odayaal talinaya arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahina siiyey isaga kuwabaale ilaahina siiyey isaga kuwabaale arrinkeena ka kale aqbalaya hadbakii arrinkeena ka kale aqbalaya ilaahina siiyey isaga kuwabaale ilaahina siiyey isaga kuwabaale When
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Said Umar Shire Guuleed waxaan joognaa hadda Muqdisho meel ka mid ah meelaha carruurta lagu ciyaarsiiyo ku taala area Banaadir taqriiban wallahi waa Eid al-Adha aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in aan jawi noocan oo kale ah Muqdisho aan ka helno waxa waay sidoo kale annagu waxaan ka midnahay dadkii waddanka dib ugu soo laabtay marka aad iyo aad waan dareen ahaan maxay ku abuurtay meesha marka aragtay canugaaga hadda wadaa meelaha aad geerabtid wallahi dee dareenku waa dareemi kartaa waa dareen aad iyo aad u farxad leh sidoo kale waxa ugu weyn oo dadka marka ay nabad haystaan laga dareemo karo waxaa ka mid ah ama nabadda lagu qiyaaso waxaa ka mid ah in meelo noocaan oo kale la helo oo dadku ay isugu yimaadaan marka aad iyo aad u mahadsantihiin Royal TV adinkan sidoo kale idin hambalyeynaa ciid mubaarak kul caam wa antum bikhair bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdirashiid Abuukar Xareed markaan aragnay baahida meesha taalo iyo ilmaheena carruurteena baahida ay u baahan tahay iyo sida loogu baahan yahay ayaa waxa isku taxaloojinay in aan sameeyno oo muxuu ahaay meeshaan aan abuurno si ciyaarkeena u ciyaaraan carruurtu meel ay ku nafisaan meel ay mar walba ugu imaadaan wax hal maalin laba maalinna maahan mar walba way furan tahay marka mar walba waxaan rajaynaynaa meeshaan meel ka sii weyn inaan u sameeyno baahidana wax keenaa dhulka ciriiriga moogi dhul intaa ka weyn haddaan helayn wax ka fiican u sameyn lahayn maalmaha ciidaha waa maalmaha ugu mashquul badan tihiin hadda dabcan carruur badan ay halkan ku aragnaa sidee u kala maareysaan adeegyadan in la helo say goorma idinku dhalatay wallaahi muddo dheer ay nagu jirtay laakiin muddada inkastoo ay dheereed waxaa u baahan tahay wax walba aad samaynaysa inaad ka fikirto waxaana keenayo in aan muxuu ahaay oo ka fikirtid oo dadka hadda shaqaale badan ay joogo waa aragtay saas ay tahayna kuma ana filin wax dadka la celinaa dadka waa Soomaali waa iska dhib badan waa ogtahay wax walba in aad dul qaadato qof baa gurigiisa sida uu ku joogo roo meesha uu ku joogo nin ma doonaa maanta inuu cunug iskiligiisa inuu u saarnaado marka mana suurtagelayso waxaana keenayo in aad muxuu ahaay maanta celceliso aad shaqaale soo kordhiso waxyaabo kala duwan ayaa ii muuqdo wiifo waa ka mid ah gaadiid nooc electronic ah oo koronto ku shaqeynaa carruurta la saaro qiimo ahaan lacagaha dabcan wallaahi lacagaha muxuu ahaay waxaan isleenahay verigi baa dadka dhaqaalooda waa inaad ka fikirnaa marka u horeyso sababtoo ah haddaadan ka fikirin ma soconayso Soomaalida waxa waa dadka baahi badan ay jirto sidaas daraaddeed waxaan ka dhignay aad u raqiisan oo waan isleenahay dadka jaabkooda ma dhibaayo muxuu ahaay albaabka $2 ka dhignay gudahana mashiinadana $1 ka dhignay arrintan waa arrin fiican dad badan u riyaaqay in carruurta laga farxiyo meelo noocan oo qiimaha laga sameeyo idinku mu aragteen in shaqo wanaagsan aad qabateen midda kale qorsheynaysan ganacsi noocayna ballaarisaan si fiican waa inaan ballaarin aad u rajaynaynaa meelaha meel ka weyn xarumo kale inaan furnaa rajaynaynaa dhulka aan helnaa ku xirantahay bismillaahir rahmaanir rahiim ciid wanaagsan waxaan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaalida dhammaantood muslimiinta meel kasta ay joogaan anigoo ah Cabdiqaadir Maxamuud Axmed oo ku magac dheer dulqaad badane insha Allah waxaan rajaynayaa ciideeda kale inaan ku ciidno farxad iyo barwaaqo iyo bashbash meel kasta ay joogaan Soomaalida sidaan oo kale ayaa loo baahan yahay inay u dalxiisaan oo u damaashaadaan xaruntan waxay ku taallaa damaashaad degmada Hodan gaar ahaan isgooska Banaadir agtiisa maanta waxa waaye maalin aad iyo aad u farxad badan oo Soomaalida meel kasta ay ka yimaadeen oo degmada aan ahayn meel walba ay ka yimaadeen sababtoo waxa waaye meel aad iyo aad u farxad badan waalidiinta carruurta halkan keenaa ka mid tahay maxaa halkaa markaa imaato ku aragtay maasha Allah waxaan ku aragnay farxad aad u weyn oo qof walba uu arki karo indhiisa ugu muuqato sida carruurta ay u damaashaadayaan aad u jeedin indhiina ugu jeedin cunug wiifo ku wiifooayo mid gaari saaran mid oo meel lagu boodbooda leh hadda nin walba wuxuu ahaa jeebkiisa iyo la ciyaarayaa waan loo baahan yahay in maalin walba la keeno meeshaan jimcada kaliya maahan ciidda kaliya maahan waa maalin walba ay furan tahay qofka jaanis u heli karo marka sidaas aan u rajaynayaa Soomaalida dhammaan ciid wanaagsan magacaaga marka hore بسم الله مقعي ومصعب على النور مصعب ما يقصنا جبتها تواني 4 سنة طيب وحاب كم ما انت عيدسا ها سؤال عصب مشات عصب وضعتها عيد وناكسن عيد وناكسن حتى هالكي جبتها هادر تنسيبيان كنت ماشان لو عيارة جبتها وحا مفوشة ها وحا مفوشة وحيالا بدنا فولة اي محاكم ده ويفو كلا ماشان لو صوت راحايو سعيد بفرح سنة درينك كور مانت درينك مانت وفاعين هاي يا جعش هاي ناس
maanta hooyaday iyo aabahay iyo sidoo kale waalidiinteeda dhammaan waa salaamaysaa ay kan uu salaamayaa muscab ciid wanaagsan ciid wanaagsan min ma qasna jirtaa macaan ma qasna jirtaa 8 sano waxaa ka mid tahay maanta meelaha ma lagu fuusho meelahan maxaa fuushe aad iyo aad maxaa fuushe meelahan dhan waa saa fuufuulay wiifo ma fuushe aye maxamed yaa salaamaysaa yaa jeceshaa inaa salaamto hooyaday iyo aabahay iyo waalidiinta tan إيدتا سماعية تمام سلامي إيد ونحسن أيه إلي سماعة منهاج أيه ملا مبوش منهاج أيه ما تعيد ساعة يا جعشة هنا سلامتك ما أنت أبي ويدي يا كلا ولا ليه أيه عيد ونحسن إيه إنه كل سنة يا إنه سلامة يا عيد ونحسن لا سوي أيه ويفو مبوشة محاكلة لا محاكلة مبوشة يا جعشة هنا سلامتك مرك يا سلامي أبي يا كلا محل عيد ونكسر ده عيدنا أيه إيه كنا بسلامة يا عيدا وتيجوا تعاد بيفهم بوشة أيه محاكلة أيه يا جعشة أحمد نسلة مانتا هو يلي يا كلا أيه ويا إيه كنا بسلامة يا عيد ونكسر كل عام وأنتم بخير يا فإذا وحاجة تعمل وعياره ويفهم بوشة ويفهم بوشة هي حتى فولي أي ما أنت عيد سبب عصوا وضع يا سلام يسا وجعش أين سلامتي هولي يا كلا يا بي أي إيه جنوب سلام أي عيد ونكسيا كل مجاعة محمد سلام محمد ويفهم بوشة أي محاكلة يا باورك أي بسم الله تعالى قرآن كتير مرة شمس نايسات أي قرآن من آخر كتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحدب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم ما أنت عيد واي ضد بدنا كفر سنة يا جعش أين سلامتك دوارد كي جدك سامالي ضد ما يشي جوجان أيه جنوب سلامة يا عيد ونكسر عبد سعيد عدك مقلوي كرو قال يا مجاعة عبد سعيد عبد العزيز ما يقصد جبتها عبد سعيد يا عبد العزيز هي وعيد سمانتا يا جعشة إنا سلامتي أو كل عيد هاي يا كلا هي إيه جنوب سلام يا عيد ونكسر يا سلام عيد ونكسر عيد سا هي مل وفوق يوحس مفوشة ما يقوى حفوشة واحد بدل تركنا هي باور موده هي باور تاع عمل إيميش أنا كلولي يا مارك هي يا جعشة ما تنا سلامتي صاحبي وارد كيدم لما أنتوا سلامي مش مديك تعالي سكون له هي قرآن من آخرين كتاب هي قرآن من آخرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك على الإنسان حين من الدار لم يكن الشيء مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمزاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا عيد ونكسر كل عام وأنتم بخير عفوا كرجنا ماشي أنا ماتت عيد ونكسر يا ماذا حاب فرقات عيد سا يفهم بوشة هي باور ما ود باور هاي دكتور مريتا هي يا سلام يا سلام أنت ضد بدنا كفير صناعي وعدد كي ود عيدا ود فرحسين هو ده أبيه أيه إيه ده أديرك كلي دمانت دو سلام يا سلام يجينا سلام يان يجوا فرحسن وكفرحسن إنا عيد هل كان إماتيد يجينا كسلام يان أنا جنوا كسلامنا عيد ونكسر نبتي كل عام وأنتم بخير عيد ونكسر محمد أيه يا كل صعدوا هايا يا كلا يا بايا ما أنتوا عيد سا أيه يا سلام يا سا يا جعش أنا سلامتي هايا هايا أبا أيه دمانت دو سلامي يجينا كسلامنا نبتي عيد ونكسر أيه حبيبي ما يقصر عجلتها ما يقصر عجلتها ديسا أيه وعيد سا ما أنت أيه يا جعش أنا سلامتي هو يديده يا كلا يديده أيه أبوهيga abtigeyga abtiyaasheeda habaryaasheeda ayayaasheeda iyo awoowaheegayaasheeda dhammaantood ay ka nuug salaamayaan ciid wanaagsan kula caamaanteeda abti magacaa haye maanta ilaana kuu marsan waa iidaysaa maano aye yaa jeceshaa inaad salaantid yaa kale haye haye
iyaga oo dhan iyagoo faraxsan oo ina aadi idid ku faraxsan iyagana ku salaamaya yaa abti ciid wanaagsan yaa abti magaca فرح نور أحمد ما أنتوا إيدسا هيا جعش هنا سلامتي هو يا أبهي يا أيدي ولا شيء ولا الكي وأيونكي لما تلاقينك سلام يا عيد ونكسن ياد كل حال لا كل عام وأنتم بخير ما أنتوا مالين عيد رنتي وحهم كل ما شاهد أنا ماشي نقرق ضبضان كنت مالهم حتى في سنجنا تي في قاعد حنا لو كان ودن كان سومالي وأنا فرح سنة ماذا عنوك أنت مشان والله سداد عنق ما شاء الله هي وحياة وبدن وكل دون وبناين هل وإذا الإسلام عنا هنا عيد ونكسن هيا هي مجاعة محمد مجاعة محمد نقصنا جزاء محمد هي يا جعش هنا سلامتي أيدي هويري أبوي أبكي أي كانوا بسلامة يا دمانتود إن شاء الله عيد ونكسن مجاعة أي نقصنا جزاء أي ما أنتوا إيدي سعلانة كوسار باور مفوشة حاكله يا جعش هنا سلامتي ولا لي هويري أكيد كله دمانتود يجنا بسلامة يا كفر أحسننا بسم الله الرحمن الرحيم مقعد فاضل محمد علي وكفر أحسننا ودن كيجينا كويدو يدي لواد وايه فمن كيجا المسلمين ملك استيجوجان عيد مبارك بالخير كورا isbedel ka magaalada hadda ka jiro in meeshan oo kala caruurta loo sameeyo arrimaha horumarka ku saabsan ma sha Allah wadankeena horumaray ku soo laabanay ay laag aad u jecelnaa inaan ku idno wadankeena nabad noqdo caruur halkan keen ha ani labadeeda gabdhood ma sha Allah ya oo ku ideyna meel aad u qurux badan laga fuu ay like beelo waay ya Islam walaal Muqdisho ya Islam oo kala muuqda may waa ka tageen saameen alxamdulillah had aad u fiican tahay nabada عيد ونكسن كي واتاي داوديال intaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo qaybtii koowaad barnaamijka gaarka ah ee looga hadlayay sida loogu ciiday magaalada Muqdisho ee Soomaaliya anigoo Aweys Maxamuud Jilco ee barnaamijkeena la soo daawadayaal inta ku kulmi doono barnaamijka xiga waxa idin kaga tagayaa kula caam wa antum bi khayr assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ciid wanaagsan